waqti badan siiyo runtii lacag fiican uu ka sameynaya waxa laga yaabaa maalintii in intan marka bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh lacag intee leeg ayaan ka sameeyaa YouTube-ka iyo barnaamijyada kale ee u furan xayeysiisyada iyo noocyada kala duwan. Videogan waxaynu ku eegi doonaa lacagta aan AdSense-ka aan ka sameeyo anigu iyo qaababka kala duwan iyo qaabka aan lacagta uga sameeyo. Videogan waa videogeena koowaad. Maanta waxaynu ku eegi doonaa runtii marka la joogo dhulka ama Afrika ama geeska Afrika markaynu joogno ama dhulka Soomaalida baynu naahnee runtii marka laga sameynayo lacagta YouTube-ka runtii ma hawl yara. Laakiin maanta waxaan ku tusi doonaa qaybaha ugu fudud ee laga sameeyo lacagta YouTube-ka inagoo taxana ka dhigi doona videoda dambana aynu soo wada doono. Runtii dad badan waxa ay leeyihiin kanalo YouTube ah kuwaas oo ay ku shaqeystaan. Qaar lacag fiican bay sameeyaan, qaarna lacag yar ay sameeyaan, qaarna wali ma bay gaadhinba oo shuruudo adag ayaa lagu xiray oo aynu ka warrami doono. Facebook oo ka mid tahay 4,000 ee saacadood inuu qofku haysto, sidoo kale inuu haysto 1,000 subscribe oo iyaduna runtii aad muhiim u ah si loogu sii daayo xayeysiisyada kala duwan. ugu horeyn waxa weeye ama qaabo badan ayaa looga sameeyaa. waxa aad muhiim u ah inaad haysato Google AdSense account. waa midka ay lacagta kuugu soo dhacayso ama halka ay lacagta kuugu soo dhacayso oo runtii aad muhiim u ah. marka hore YouTube-kaaga ama kanalkaaga ayaad sameynaysaa. ugu horeyn waxaad gaaraysaa 4,000 oo saacadood oo daawasho ama la daawaday oo waqti ah. sidoo kale 1,000 subscribe ayaad u baahan tahay inaad sidoo kale aad gaadho. intaa kadib waxaad ku xidhaysaa ama aad account-kaaga ku setup gareynaysaa dal ka mid ah dalalka uu ogol yahay YouTube-ku ama Google AdSense-ku uu ogol yahay. intaa kadib waxay ku sameyn doonaan payment ama fair payment ay ku soo diri doonaan oo lacag yar sanadii ah ayaa account-kaaga ugu soo shubi doonaa. haddii aad account-kaaga ku verify gareyso way ku sii deynayaan lacagta dambe. sidoo kale address verification ayaa isna jira runtii kuwa waynu qaadan dhigi doonaa. ugu horeyn waa inaad samaysato AdSense account oo runtii ah account-ka halka kuugu soo dhacaya ama halka muhiimka ah ee aad ka helayso. haddaba videogan hordhaca anigu lacag intee leeg ayaan ka sameeyaa. lacag intee leeg ayaan bishii ka sameeyaa. aynu eegno account-kani waa account-kayga rasmiga ah ee AdSense-ka. bil kasta runtii aad uma sii dadaalo oo aad uma sii joogteeyo, laakiin haddii qof uu waqti badan siiyo runtii lacag fiican uu ka sameynaya. waxa laga yaabaa maalintii in intan marka pound-ka haddaan u bedelno waa 3.65 haddaan idhaahno pound to dollar oo aynu tagno aynu ka dhigno aynu idhaahno 3.61 aynu enter siino waxay noqonaysaa lacag $4 iyo 82 senti ah. mararka qaar waxaad gaari kartaa 10 pound oo u dhiganta $3. kolba waxay ku xiran tahay account-kaaga iyo YouTube-ka iyo sidoo algorithm-ka uu la shaqeynayo iyo keyword-ada. runtii qaybahaasina aad bay muhiim u yihiin. sidoo kale waxa muhiim ah in aad maxaa la dhahdaa payment-kaaga waxaago dhan ay ku verify gareysan yihiin. hadda account-kani waa account-kayga real-ka ah. waa midka lagaaga baahan inaad aad gaadho. hadda bilii u dambeeyay ma ku dadaalin, laakiin mar walba waxa lagaaga baahan inaad gaadho 60 pound halka dollarka uu ka yahay 100. sidoo kale uu ka yahay 60 euro-ga I think inuu 60 euro yahay. laakiin muhiimaddu waa inuu ku verify gareysan yahay account-kaaga uu kuugu soo dhacayo. kaas ayaa ka muhiimsan. mar walba waxa ku muhiim ah ama aynu kaga sheekeyn doonaa xayeysiisyada iyo qaabka loogu furo, qaabka loo sii daayo iyo qaabka maxaa la dhahdaa loo kordhiyo keyword-ada iyo qaabka aad uga faa'iideysan lahayd barnaamijkan ballaaran ee internet-ka ku xiran xayeysiisyada aad ugu furanayso kanalada YouTube-ka iyo kuwa la midka ah. waynu sii wadi doonaa insha Allah. haddaad videogan ka hesho
si aad video dambana ula socoto like saar sidoo kalena subscribe saar si aad ula socoto aad baad umahadsantiin